bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halkan waa janalkaynu ku leenahay youtube-ka ee madasha wararka waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo saqdaan barnaamijyadeena qodobada ugu waaweyn ee aan saaxiibayaal daawadayaal idinkugu soo gudbi doonana barnaamijyadeedkan idinku soo maqanna waxaa ka mid noqonaya amiirkii kooxda al-shabaab ayaa la dilay duqeymo ka dhacay gobolka hiiraan ayaa daawan doontaan xubnihii ugu badnaa ayaa lagu xasuuqay hiiraan oo kacdoonada markii horeba martigelisay amaba bilowday amaba xudunta barbilowga kacdoonada al-shabaab lagu diidan yahay xogihii ugu dambeeyay ayaan saaxiibayaal daawadayaal idinla wadaagi doonaa cali guudlaabe iyo sidoo kaleba axmed faal waxay dagaalo kale ka wadaan gobolka shabeellaha dhexe maamul goboleedka hiirshabeelle al-shabaab fara badan ayaa sidoo kale halkan lagu xasuuqay waa daawan doontaan deegaanka masaajid cali gaduud xaaladiisu sida ay tahay ayaan sidoo kale barnaamijkan idinku soo maqan idinkugu soo gudbi doonaa al-shabaab sidoo kale waxaa lagala wareegay deegaan muhiim ah oo hoos yimaada maamul goboleedka galmudug haddaba deegaanka kan waxay ku sugnaayeen muddo fara badan barnaamijka iyaga ayaan saaxiibayaal daawadayaal idinkugu odorosi doonaa xogo macluumaad ayaa daawan doontaan iyo jabka tixanaha ee soo gaaraya kooxda al-shabaab daawada saaxiib soo dhawow muuqaalka laxar oo sii shargaray in nagu soo biiro subscribe inoo saari channelka faraga malaalkaasi durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinkugu soo gudbino waa ku mahadsan tahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigan aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawada saaxiib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada ama falaqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay markaana aynu ku bilowno xubno ka mid ah shabaabka ka dagaalamaya gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu dilay duqeyn militariga maraykanka ayaa sheegay in ay soomaaliya ka fuliyeen duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo dagaal kula jiray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyada oo la kaashanayo dowladda federaalk soomaaliya taliska maraykanka ee africom wuxuu fuliyay duqeyn ka dhana argagixisada al-shabaab oo weeraraya ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya meel u dhow degmada Buulaburde oo qiyaastii 218 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan Muqdisho Oktoobar 23keedii ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Africom. Bayaankan ayaa intaasi ku daray in qiimeynta hordhaca ay muujinayso in duqeynta lagu dilay laba shabaab ah isla markaana aysan jirinba wax khasaare ah oo ka soo gaaray shacabka. taliska Africom wuxuu qaadayaa tallaabooyin waaweyn si looga hortago waxyeelada rayidka. Ilaalinta rayidka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah howlgallada taliska uu sare ugu qaadayo Afrika xasiloon oo ammaan ah ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay taliska Maraykanka ee qaaradda Afrika. Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka socda dagaal xoogan oo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo shacab hubeysan oo la baxay macawisley dagaalkaas oo ka dhan ah kooxda al-shabaab. dagaalka kan ayaa waxaa hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ugu horeeya xildhibaan Sambalulshe iyo sidoo kale xildhibaano kale oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdi Maalik. dagaaladan soconaya ayaa waxay yihiin dagaalo si weyn loogu riiqmay isla markaana awoodda kooxda al-shabaab inteeda badanba lagu jabiyay. al-shabaab ayaa waxaa la warinayaa in gobolka Hiiraan oo dhan laga sifeeyay iminka haddaba waxay halkaasi ku joogtaa dhuumaaleysi balse ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ayaa howlgallo kala gedisan halkaasi ka wada waxa ayna doonayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ee markaasiba u soo afjaraan howlgallada halkaasiba ka socda ee lagu diidan yahay kooxda al-shabaab. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si degdeg ah waxa uu ciidamada ugu amray in ayba markaasi ka libin keenaan guulaha wax ku oolka ee laga gaarayo kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisu waxa ay dagaal adag kula jirtaa kooxda al-shabaab waxayna doonaysaa in ay ka guuleysato dagaalka kan iyadoo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan kuwaas oo haatan diidan xukunka aan dhahe kooxda al-shabaab. gudoomiye Cali Jayte Cismaan iyo rag kale oo siyaasiyiin ah ayaa haatan iska kaashanaya dagaalka adag ee lagula jiro kooxda al-shabaab kaas oo ka soconaya gobolka Hiiraan.
walow markaasiba inta badan laga gungaaray oo markaasiba guul muhiima laga gaaray dagaaladan. gobolka hiiraan oo dhan kooxda al-shabaab waa laga sifeeyey sida xogaha aan helayno ay markaasiba inoo xaqiijinayaan, balse deegaano yar oo kooban ayay ku arsan yihiin, waxaana sida ugu macquulsan ee haatan loo soo afjari karay waxaa ka shaqeynaya gudoomiye cali jayte iyo sidoo kaleba madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf dabageed oo halkaasiba ku sugan. gobolkan hiiraan ayaa waxa uu ahaa barbilowga dagaalka al-shabaab oo haatan lagu wiiqaya awoodooda, waxaana gobolkan tegay mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo sidoo kaleba wasiirka gaashaandhigga cabdiqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed genaraal odowaa yuusuf raage. haddaba duqeymahan al-shabaab lagu leynayo sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya marka laga soo tago dowladda maraykanka, waddanka turkiga oo saaxiib dhowla ah dowladda federaalk soomaaliya. turkiga ayaana waxa uu maalmihii lasoo dhaafay al-shabaab ku duqeynaya deegaanka masaajid cali gaduud oo ku yaala gobolka shabeellaha dhexe dowlad goboleedka hirshabelle. duqeymahan ayaa waxaa lagu dilay horjoogayaal ka tirsanaa kooxda iyo sidoo kaleba oday dhaqameedyo kooxdu soo hubaysay, islamarkaana ay si qasaba muuqaalo ay kaga soo duubtay kusoo bandhigtay baraha bulshada. oday dhaqameedyadan ayaana sheegayay in ay la diriri doonaan oo ay la dagaalami doonaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka ee haatanba ku duulaya kooxda al-shabaab. inta badanse haatan waxaa sida ugu macquulsan loola dhaqmaya kooxda al-shabaab, waxaa sidoo kale la badbaadinayaa dadka shacabka ee ku nool deegaanada al-shabaab lagula dagaalamayo. hubka ayaa laga dhoorayaa in goobahaasi uu ka dhaco. diyaaradaha duqeynaya al-shabaabna waxay bartilmaameedsanayaan keliya goobaha al-shabaabku ay ku dhuumaaleysanayaan. godad dhaadheer oo waaweyn inay qoteen ayaa lasoo warinaya, halkaasina gantaalaba loogu geenayo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu si degdeg ah haatan amar ku bixiyey. amarka kan ayaana waxa uu yahay in markaasiba dagaalada lasii laba jibaaro oo laga bilaabo deegaanada aysanba ilaa iyo hadda ka bilaaban sida jubbaland iyo sidoo kaleba koonfur galbeed. galmudug xaggeedu waxa uu tilmaamay in gaabis fara badan uu ka jiro, balse loo baahan yahay in gaabiskaas la jaro oo markaasiba si toosa loo howlgalo oo markaasiba ciidamada lagu amro inay dhaqaaqaan. halkaasi waxaa dhowaan isugu tegay murqaweynta ama wajilbadweynta siyaasiyiinta maamulka galmudug oo uu ugu horeeyay ra-iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble, madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo sidoo kaleba rag kale oo saraakiila uu ka mid ahaa genaraal saadaq john. looma kala harin shirkii dhuusamareeb lagu qabtay dhowaan ee looga areensanaya sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka galmudug, balse ilaa iyo hadda hadalkii iyo waxyaabihii ay soo saareen ayaa waxa aysanba u bedelin ficil. dagaalka kan ayaa waxaa laga doonayaa inay u dhaqaaqaan si al-shabaabka looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kaleba goobaha kale ee ku yaala maamulkaasi galmudug. waxaa inta ugu badan haatan dagaaladu ay yihiin kuwa soconaya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaana si toosa waxa uu doonayaa inuu dagaalada kan ka libin keeno, iyadoo dhanka kale ay xusid mudan tahayba in kooxda al-shabaab dagaalka lagula jiro ay markaasiba si weyn u xagaldaacinayaan kooxda nabad iyo nolol ee uu hogaaminaya madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo. kooxda nabad iyo nolol ayaana rabin in markaasiba xasan sheekh uu al-shabaab ka saaro gudaha dalka soomaaliya, taas oo xasan u noqon doonta diiwaan wanaagsan iyo sidoo kaleba ififaalo mar kale dib loogu doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sanada 2026. waxay ka fikirayaan mustaqbalka farmaajo halkii ay ka fikiri lahaayeen mustaqbalka dalka Soomaaliyeed. guud ahaan daawadayaal saaxiibayaal waa inaga intaa warkii ay kala socoteen channelkeena YouTube-ka. daawada saaxiib inagu soo biiro inaga mid noqo, subscribe inoo saar channelka Faraga Mararka si darbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino. oo ku maasan tahay daawashadaada iyo la jaanqaadkaada intaba. tan iyo barnaamijkaana kiisa kale daawadayaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo. manalla.